muddo 3 sano ayaa laga joogaa markii Taliban ay la wareegtay awoodda iyo talada dalkaasi Afghanistan kadib 20 sano ay ku jireen dagaal. haddii aan isbarbardhig ku samayno Soomaaliya iyo Afghanistan iyo sidoo kale shabaab iyo Taliban si aan faham buuxa uga qaadano waxa uu ku saleysay halgankooda. Mareykanku waxa uu Afghanistan ku duulay bishii Oktoobar 2001 si uu meesha uga saaro ururka Taliban oo gabaad siinay hogaamiyayaasha Al-Qaacida Osama bin Laden iyo hogaamiyayaal kale oo la xiriirinayay weerarkii 11 Sebtembar 2001. 20 sano kadib ay hal mar isaga baxeen Mareykanka iyo xulufadiisa iyaga oo wax ay xaqiijiyeen aanay jirin. xildhibaan Yuusuf Xasan oo ka tirsan baarlamaanka Kenya kana soo shaqeeyay Afghanistan xilliga uu ka mid ka ah shaqaalaha qaramada midoobay. xildhibaanku waxa uu si fiican wax uga bartay muddadii uu ka shaqeynayay dalkaasi dhaqankooda. Afghanistan meelo badan ayaan ka simanahay sida uu inoo sheegay xildhibaanka in qabiilka uu kala weeyay qaranka laakiin ayaa ku jirta halkaas waa kan xildhibaanka oo inoo sharaxaya. Afghanistan iyo Soomaaliya aad iyo aad bay marka dan ka eegto u kala duwan yihiin taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba laakiin haddana meelaha qaarkood meelo badan oo iska shabahaan baa jirta oo marka qaarkood aad u malayn karto qaybo ka mid ah Afghanistan sida dadkan Pashtun oo kale ee Pakistan iyo Afghanistan dega dhaqan ahaan inay aad iyo aad uga fogeen dadka Soomaalida xagga reer guuraanimada xagga qoyska iyo qabiilka sida ay aad ugu adag yihiin oo ay ka sareyso qarannimada iyo wadaninimada laakiin haddana markaad isbarbar dhigto Taliban iyo Al-Shabaab ayaguna way aad bay dhan isaga kala duwan yihiin. Talibanku waxa weeyaan waa dadkooda kasoo dhaxdhashay oo khaasatan aanan aad uga fogeen dhaqanka iyo asluubta diinta ee dadka Afghanistan wax fikrad shisheeya ama se aqoon shisheeya oo ay dul saareen dadkooda ma jiraan waxa weeyaan dhaqanka iyo diintu sidii uu ahaan jirtay bay ku wadaan oo ma aha wax ka duwan oo dibadda ka yimid mabaadiidoodan ayagu waxa weeyaan inay xoreeyaan oo dadkooda dhan ay soo wada keenaan oo hal mar xukunka wadanka ay la wadaagaan ma filanayo sida ay u egtahay Al-Shabaab inay ujeedadeeda sidaa tahay inay qarannimo Soomaaliya intay hantiyaan ay ka xoreeyaan xoog shisheeye. Talibanku weligood waxay la dagaalamayeen xoogag shisheeye markii ugu horeysay qaybo ka mid ay ahaayeen dadkii la dagaalamayay midowga Soviet run ahaantina taariikhda dawladaha waaweyn markaad eegto midowga Soviet kama soo waaqsan jabkii ka gaaray dalka Afghanistan markii uu burburka ku dhacay ee laga adkaaday mujaahidiintu ay kaga adkaadeen Taliban iyo shabaab labaduba waxay adeegsadaan qaraxyo iyo falal lagu tilmaamo argagixisnimo si ay u gaaraan ujeedooyin siyaasadeed. sidoo kale Taliban waxaan oran karaynaa waxay fahmeen ujeedooyinka iyo adduunka halka uu u socdo. waxay noo sharaxayaa mufakkirka weyn Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir. saddex buuraley bay ku jiraan adag oo dhulkoosiisa ku nool yihiin maaha geedo hoostiisa maaha dhulkoosiisa ku nool yihiin waa la gaari waayay waxaas oo dhan wuxuu u keenay intii oo dhan waxay ku jireen waxay tagi jireen Qatar dowlad siyaasi ay qaateen seminaaro siyaasi ah iyo heshiisyo seminaarku wuxuu u furay waxay aabisalayeen in wala qaldalaabay arkeen Mareykanku wuxuu meesha ku daashay iska tagtay ma cashuurta shicibka Mareykanka meesha la fadhinaysa wuxuu aad gaadhay hadafkii uu gaaray hadafkii istaraatiijiga wax ma gaadhay. sida la arkay Taliban wadad u diyaarsan maamulka dhulkooda iyo shacabkooda hadaba su'aashu waxay tahay shabaab ma yihiin dad u diyaarsan hab maamul waa kan mar kale mufakkir Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir. annaka waxa weeyaan Soomaalidan iyo shabaabka la dhacday istaraatiijiyada mal cumqina male oo Ethiopia iyo Kenya cumqi kuma yeelan karayaan labo vision male saddex saddexaadi madaxooguna ma kobco waxa kobca jirkooda hubka haystaan iyo xoog iyo waxba kobca laakiin madaxoog ma kobco gargaarka quray ay haystaan wax yaaran cashuurta ka qaadaan Soomaalida xooga cashuurta hadii ka goodo khalas lana cashuur waxay qaadaan qeyr caadi qof kasta oo Soomaaliya ku nool cashuur bixiya una siiyaan shirkadaha dhan baa siiyay dadka dhan baa siiyay hadii si waaya ma noolaan hoteelada ugu weyn xabare degan lagu qurux badan yahay cashuurta bixiya kambaniyada xataa kullu way bixiyaan marka taasi ku nool yihiin
dadkana way kala xukumaan lacag ka qaataan dawlad fi dakhil dawla weeyaan sibinaarana ma qaataan adduun baa loo socdaa adduunkan isbedelka kaga socdaa iyo sida adduunka loogu noolaado fiqul waaqic waxa dhacdo shaqo kuma leh marka iyagu waxa la isma baradhigi kara maaha dee qabaagaasi kama dhamaanayo sadaajadaasi doqonnimadaasi siyaasiga kama dhamaanayso inaan kortaa la rabaa oo maartay siraac u dhaxeeyo Taliban iyo Al-Shabaab Taliban markuu horeyso waxa hogaamiyo culimo Al-Shabaab way bahdilaan culimada bal way dilaan culimadii markii una seexayaan waana ogtahay waxa ku dhacay Qadir Gacmay Dr. Ahmed iyo rag la midka ahay talabaad Taliban waxa u jooga in ka badan 70 mufti halka Al-Shabaab culimadii Soomaaliyeed ay ka bari noqdeen ilaa in yar oo la joogta ayagoo meel ay ka baxan raadinay tan saddexaad Taliban wada tashta taladaasna wax ka sameeya halka ay shabaab yihiin keligii taliyaal tooda keliyana u muuqata taafraad Taliban waa niman ujeedo fog leh halgankoodana raba inay dadkooda ku xukumaan shariicada iyo waxay doonayaan halka ay shabaab yihiin jabhad yar oo ka fikiraysa sidii u noolaan lahaayeen bis tusaale hata kaaga soo qaado oo waxa taa daliil ah Al-Shabaab waxay gacantooda ilaah u soo galiyay 10 walaayad 10 gobol ayay joogeen halkii ummadii si wanaagsan ku dhaqi lahaayeen ayay waxay bilaabeen inay shacabkii kumaadeen shacabkii dilaan qarxiyaan kadibna ilaah subxaanahu wa ta'ala gacantooda ka bixiyay dhulkii haysteen tani waxay ahayd warbixin kooban ay isbarbardhig ku sameeyeen farqiga u dhaxeeya shabaab iyo Taliban oo haatan ay dalkaasi Afghanistan gacantooda ku jirto gabi ahaanba aad iyo aad mahadsantiin